maxkamadda markay weydiisay su'aalihii la weydiiyey eedaysanaha oo qiray dembigaasi inuu galay. maxkamadda markay aragtay caddaymaha dembi muujinta la hor keenay maxkamadda horteeda ay ka mid yihiin qiraalka uu bixiyey eedaysanaha iyo mididii uu ku dilay marxuumadda. waxaa kaloo maxkamadda la hor keenay dharkii ay iska lahayd marxuumad aamino. waxaa kaloo la hor keenay dharkii ama sarwaalkii oo iska lahaa ama macawiistii uu lahaa eedaysana maxamed. maxkamadda markay ay dhegaysatay qiraalka uu bixiyey uuna ku caddeeyey marxuumadda inuu ku dilay gurigiisa uu ku riday boosaneero asig uu leeyahay. sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay dembigii lagu soo eedeeyey eedaysana maxamed xasan maxamed. maxkamadda waxay ku xukuntay eedaysana maxamed xasan maxamed ina ruqeyo isaaq cabdiraxmaan 35 jir ah ku dhashay degan baydhabo. waxay ku xukuntay dil toogasho ah qisaastii marxuumad aamino maxamuud malaaq isaaq ayadoo loo cusbanayo shareecada islaamka iyo qaynuunka dalka u degsan, gaar ahaan aayadaha 178 iyo 179 suuratulbaqara iyo aayada 45 suuratulmaa'ida. maxkamadda markay aragtay qodobka lagu soo eedeeyey ee ah 434 heerka ciqaabta Soomaaliya, maxkamadda waxay ku xukuntay dil toogasho ah ee qisaastii marxuumad aamino maxamuud malaaq isaaq. wabilaahi tawfiiq.